السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي مالكستو أتشوفتان كسو دوادا برنامج كيني قلب نمو ما انتوا جمعة تاريخنا وحاي كوبيغان تاي كوبي اللباتنك بشا مارسو سنة كالباكون يشاني لباتن برنامج كو واكي لباد عن ديسو قدبني نومانتو جمعة وانفلا يا ناسيوين وغهشين معلوماتكي يوربحنا دي اينو كسو قدبني برنامج كيني صباح نمو haddaba barnaamijka galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda bariga dhexe. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa ku hanjabay in ciidankiisu ay xoog ku gali doonaan Gaza, dadka halkaa joogana ay ku qasbi doonaan inay aqbalaan go'aankii laga gaaray Gaza oo ahaa dadkeeda in la haajiriyo oo markaa ay isaga carari doonaan. Xamaas oo jawaab kulul u siisay wasiirka gaashaandhigga. haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda guud halka ay marayso ciidanka Israa'iil ee lugta ku soo galay hadda halka uu marayo iyo xaaladda sida ay tahay ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa maanta ay ahayd jimcihii saddexaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan. waxay sheegeen mas'uuliyiinta masaajidka tirada dadka ku tukaday in markaa ay dhan tahay 80,000 oo qof dadka badan xilli ay Israa'iil meel walba checkpointyo dhigtay oo ay control dhigtay si ay dadka u cadaadiso. haddana dadkii way ku tukadeen ayaa la leeyahay intaas oo kun oo qof ayaa ku tukatay. haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda magaalada Qudusna waan idin hayaa. maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa war soo saartay ay ku diidayso go'aankii shalay ay gaareen golaha wasiirada Israa'iil kaasoo ay xilka kaga qaadeen madaxii sirdoonka gudaha Israa'iil ee la yiraahdo Shabak. haddaba buuq fara badan oo Israa'iil gudaheeda ka taagan, wasiiro la soo jeestay inaysan maxkamaddu awood u lahayn inay diido go'aanka golaha wasiirada iyo maxkamadda oo arrinka ka hadashay. sheekadaas iyana barnaamijka ayaynu ku faaqidi doonaa. haddaba qodobadaas aynu barnaamijka idinkugu haynaa. waxaa sidoo kale barnaamijka aan kusoo gudbin doonaa xootiga iyo Trump halka ay kala marayaan, wararkii ugu dambeeyay arrintaa iyana waan idin hayaa. haddaba waxaa naga xusuusa dad badan waxay isweydiinayaan maanta waa jimce, barnaamijkeennii galabnimo awal waxaynu ku qaadan jirnay qisada jimcaha, laakiin qisadeena jimcaha maanta waxaynu u wareejinay kanaalkeena kale ama channelkeena kale ee qisooyinka Nadaara 2. kaas ayaad ka daawan doontaa dadka qisooyinka aadka u jecel. saakayna barnaamijyadeedii waan ku soo sheegay, linkigan waxaan idiin soo dhigi doonaa meesha hoose si aad halkaa ugala socotaan qisooyinka, maadaama xaalado aad u adag ay jiraan. Trump iyo xooti iyo Gaza iyo arrimaheeda ayaynu barnaamijyadeena wararka saddexda waqtiba sii wadi doonaa. dadka qisooyinka aadka u xiiseeyana channelkeena kale qisooyinka Nadaara 2 ayay u wareegi doonaan, halkaas ayay ka daawan karaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo. maanta waa jimce, mar kale waxaan idin leeyahay jimca mubaarak. waa jimcihii saddexaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan. ilaahay oo khayrkiisa na sii. 10kii dambe ayaynu ku jirnaa. kuwii ka faa'iidaysta ilaahay ha naga dhigo, kuwii haleela oo la kulma habeenka laylatul qadr ilaahay ha naga dhigo. aan u ducayno annagana dhammaan dadka muslimiinta caalamka, gaar ahaan kuwa dhibaatadu ay haysato, gaar ahaan reer Falastiin iyo reer Gaza oo dhib fara badan ku jira. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ninka la leeyahay ayaa hadallo adag hawada u mariyay reer Gaza iyo Xamaas. wuxuu sheegay in ciidankoodu ay amar ku siiyeen inay meelo muhiim ah galaan oo Gaza ku yaala si ay dadka meelaha degan ugu qasbaan, sida uu yiri, tahjiir ama in la haajiriyo ee isaga cararaan meesha ka baxa. si kasta inta la yiri waa diiday Soomaa. marka hadda khidada loo dejiyo yiri abaanduulo cusub ay yimid, isaga hawshii wada. marka ciidanka afarta jiha inta ka gelino aan maartay haajirinayna ule. marka tawaqulaadkooda ama gelidoodana way soo xoojiyeen meelaha ay ka soo galayeen.
hawshaasu marka waxaa ay ka timid dhanka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz oo u hanjabaya Xamaas iyo dadka reer Gaza. haddaba Xamaas waxay leedahay dadkanu meel uma socdaan, wixii dhimana waa dhimanayaan, wixii ilaahay uu badbaadinayaan way badbaadayaan, adigu waxba ma dili kartaan, isku kaana sii waxba geesaha Gazaha ku rarafanina ee taangiyadiina u soo dira. maalihii aanu isku heli jirnay waa taqaanaan ilii alyaasiinkii weli ma bilaaban, weli si fiican nagtale isagama saarin, laakiin waxay leeyihiin booloxooftadan aad meelaha ku wadaan geesaha Gaza oo anta meel duqaysaan taangiya soo gelinaysaan lama rabee Jabaaliya iyo Baytlaahiya iyo Baytxanuun iyo dhulkan aan soo nimaadno iyo Khan Yunis iyo waa isnaqaanaa meelaha markay inaa soo gashaan waayo. halkaasaa marka waxaanu ku kala ogaan doonaa abaanduulaha cusub khidada uu keenay inay u shaqaysay iyo in kale. kii hore waa shaqayn weysay, dadku meeshuu ka saari waay Soomaa, ninkan cusub iyo isaguna khidadiisa markaasaa la ogaan doonaa ilay. haddaba marka xaaladda magaalada Gaza way kacsan tahay. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in duqeymo kale Israa'iil ay ka fulisay xaafado kala duwan oo Gaza. duqeymuhu waa joogto, dadka iska dhimanaya, cabaaraya, qaylinaya waa joogto. marka ilaahay dadka marka ha badbaadiyaan leenahay. xaaladda marka Gaza halkaasay joogtaa. waxaan u gudbaynaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa. maalmahan sidaa la socoteen Israa'iil waxay dhigtay jidgooyooyin ay ku hareereysay masaajidka. dadka Falastiiniyiinta ee ka imanaya daanta galbeed ee masaajidka soo aadaya waa la dhibay, qaarkood waa la iska xiray iyagoo waxba galabsan, kaliya inay u socdaan inay soo cibaadaystaan. waa la xiray, xabsiyaa la dhigay, waa la jirdilay, waa la garaacay. intaas marka waxa loo samaynayaa la leeyahay dadka in la nacsiiyo soo aadista masaajidka ilaahay in la soo aado, in la nacsiyaa la raba dadka. laakiin dadkanu dad naxaaya maaha. Falastiiniyiinta waxay leeyihiin muslimiinta annagaa u matalayna, masaajidkan waa buuxsamaa mar walba. inkastoo muslimiintii kale ka saxdeen masaajidkan annagu keligeena aanan lahayn oo masaajidkii muslimiinta ee saddexaad u yahay. marka laga soo tago xaramka Maka iyo Madiina, marka laga soo tago waa masaajidka saddexaad. marka waxay leeyihiin maadaama annagii meesha aan joogno, annagaa si fiican hawshaa u qabanayn, waa buuxinaynaa salaad kasta. marka siday ku soo galaanba 80,000 ayaa maanta ku dukatay jimcihii saddexaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan, taasoo muujinaysa inay Falastiiniyiinta iyo dadkaas muslimiinta halkaa jooga ay ka go'an tahay inay masaajidka difaacaan intay la gaartaba. haddaba marka qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijkeena aynu ku qaada dhigayno wuxuu yahay maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa war soo saartay saak. waxay tiri wax kama jiraan waaye xilka qaadistii golaha wasiirada xalay Israa'iil ay xilka ka qaadeen ninkii madaxda u ahaa hay'adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee la yiraahdo Shabak. wax ka jira ma leeyahay. maxkamadda sare waa diid. maxkamaddii sare markay diiday, wasiiradii maaratay Netanyahu ayaa mid walba afka furtay. maxkamaddii weerarayaan. waxaa ugu horeeyay ninka la yiraahdo Smotrich, wasiirka maaliyadda. awooddaas iyo salaaxiyaadkaas maba la hulay maxkamadda sidee golaha wasiirada go'aan ay gaareen maxkamadda sare u diidi kartaa. mid kale soo booday waa wuxuu leeyahay sidee ku dhici kartaa, kulligood waa qaylinayaan. maxkamadda sare waxay leedahay waxaas wax ka jira mana, ninkaan shaqadaada qabsay dheh. wasiiradan wax xila oo ay kaa qaadi karaan lama arkay dheen ee shaqadaada qabso. iyaguna maxay taagiin xilkii waan ka qaadnay ilaa 10 Abriil oo ugu egyahay ka horna nin kale la soo magacaabaya ee waa kaas xilka ha joog. marka buuqaasa meesha ka jira gudaha Israa'iil. dad badan waxay ku saadaalinayaan, waxay leeyihiin khatartan haddaan laga hortagin gacan ka hadal, dhibaato, mushkilada ka dhex dhici doonta madaxda Israa'iil gudaheeda.
وحليه مركا وعقوبة دتك للاينيو مالين والبا غزة عرورتان قايلينيسا هويوين كان ميدد كان ساس لا سو دينع dhigay waxaas waa cuqubadaas iyaga dhexdooda ka soo bixita iyaga nagta iska saari doonaan marka ninkii wuxuu leeyahay anigu maxkamadda sare shaqaysay leedahay marka waxa sidoo kale ku dhagan waxa jirta gabar la yiraahdo la taliyaha dawladda ee dhinaca sharciga jirta oo awood farabadan oo sharciga la dawladda kala talisa sharciga gabadha iyaduna way diid waxay tiri xil kama qaadi kartaan Netanyahu marka muxuu yiri axadda soo socota golaha wasiirada la tagaan gabadhaas xilka laga qaada aydan marka sheekadii marka way qasan tahay halkaas warka waxa ka taagan fawda ka taagan dhibaato ka taagan waa arki doonaa xaaladaas meesha ku dhamaato waayahay arinta kale ee wararka cusub ee maanta soo kortay waxa kamid ah mar kale mudaaharaadayaashii jimcaha maanta waxay ku laabteen gurigii Netanyahu booliiskii iyo ilaaladiisii iyo wixii oo dhan jidkooyooyin dhigeen kumanaadada Westpalace waxay ilaa guriga dariishadaha uga daadano oo odagan kuleetiga aan soo qabano walaa inaan joogsanaynin ninkan dagaalka lagu wada oo ninkii Musaad xilka ka qaybaalkii shabaak xilka ka qaaday waxa soo dhan warninkan waxay yiraahdeen yahuudi dabagadiso ku wada marka waa inaan iska qabanaa maanta marka ayaa hadana la isfarasaaray booliiskii iyo dadkii mudaaharaadka sameeyay nagtaal iska saaray waa la iska raacay qaar badan waa la xiray dadkii booliis fara badan waa la dhaawacay checkpointyadii ama jidgooyooyinkii guriga hor yaalay ayay kumanaan ka rabaan inay xoog ku talaabaan booliiskiina way soo bartadeen nimankii waardiyaasha guriga ahaa way yimaadeen wixii oo dhan marka arikaasa isaguna magaalada Qudus ka socdaa la leeyahay oo guriga Netanyahu uu ku yaalo marka sheekadaas iyaduna halkaas ay maraysaa qadar xayeysiisa kadib wixii warara ay ka soo kordhay xootiga iyo Trump oo ishaya iyagana barnaamijka ku faahfaahin doona galabnimo hadaba barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaanu kala maqnayn hadaba qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka soo kordhay xiisadda iyo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Xuutiga hadaba maxaa dhacay saacadihii la soo dhaafay hadaba waxa noogu dambeysay Yaxya Sariic oo xalay sheegay 24 saac gudahood inay Israa'iil weerar ku qaadeen Tel Aviv inay nagta ka saareen halkaas ay noo mareysay Mareykankuna xalay uu sheegay in iyaguna ay laba weerar ka furiyeen maaratay Yemen oo ay meelaha Xuutiyiinta kamida ay duqeeyeen hadaba marka maxaa soo kordhay ilaa waqtigaas waxa leeyahay wax soo kordhay male laakiin nimanka Xuutiyiintu waxay leeyihiin idaacadooda la yiraahdo Al-Masira ayaa waxay sheegtay inay diyaar garoobeen oo ay rabaan inay weeraraan meel kasta oo Mareykanku ka joogo gobolka taas waxa leeyahay halis badan ay keeni doontaa maxana meel kasta oo gobolka ka joogo maxay tahay saldhigyada uu ku leeyahay wadamada Carabta xataa taa marka khatar ay keenaysaa dawladihii Carabta marka waa qaylinayaan waxay leeyihiin annagu Mareykan waxaan u sheegnay saldhigyada uu wadamadeena ku leeyahay inuusan ka weerari karin Xuuti inuusan ka weerarin ayaan u sheegnay mana laga weeraro Xuuti badda laga soo weeraray maraakiibta badda u taalo Mareykanka ka weerara marka Xuuti yuusan soo aadin Iiraan marka loo dacwoona risaalaad oo kala duwan ayaa waxa leeyahay wadamadii Carabta waxay u dirayaan Iiraan waxay leeyihiin Xuutiga naga qabo leh waa soo weerara Sacuudiga iyo Qatar iyo Kuwait iyo Imaaraat iyo kuwa dhawa qeylnaan waxay leeyihiin annaga dhulkeena lagama weerarayo Xuuti muxuu naga rabaa Xuuti halala hadleeyay muxuu naga rabaa dhulkeena lagama weerarin badda laga soo weeraray iska dhiciyo annaga Mareykan waa u sheegnay waa naga aqbalay inuu saldhigyada uu ku leeyahay halkan inta ka duulo uu Xuuti ku duulin
marka xuuti hadhow gantaala uu soo riday saldhigii maraykanka hadduu la waayo oo gurigii odagii boqorka ahaa uu dhex dhigo waa wareer meeshaas marka carabtii waa qeyllayno iiraanna waxay leeyihin war nimankan naga qabo marka cabsida ugu weyn oo hadda la qabo waxay taala leeyahay xuutigu dagaalku inuu halkaa u wareejiyo inkastoo iiraan lala hadlayo laleeyahay war nimanka la hadal xaaladdu marka way kacsan tahay wax cusub oo warar soo kordha male laakiin saacad kasta waxaa la filayaa weeraro kale in la isdhaafsado haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeennii galabnimo intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa mar kale waxaan idin xusuusinayaa sheekadanii jimcaha oo xiliyadan oo kale aada u barateen inaan idiin soo gudbinno maanta waxaan u wareejinay janalkeena cusub qisooyinka nadaara 2 halkaas ayaad ka daawan doontaan qiso aada cajiib u ah oo xiiso leh oo aan soo diyaarinay ayaan geynay maadaama xaaladda gobolka bariga dhexe ay kacsan tahay niyuusyada iyo wararkuna ay yihiin kuwa isdaba jooga iska soo daba dhacaya marka saddexdeenii barnaamij wararkeennii ayaan ku wadanaynaa inta xaaladdu bal dhinac uga dhacayso wixii qisooyinaana waxaan u xawilnay halkaas janalkeena kale halkaasaa qisadii maanta kala socon doontaan linkiga waxaan idiin soo dhigayaa meesha hoose ee fariimaha halkaas ayaad ku dhufan doontaan fariinta ugu koraysa si aad u daawato qisooyinka haddaad xiisayso wixii warare soo kordhaa barnaamijka dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa laagareeya barnaamijka oo sheergareeya si in badan ooga mid a barnaamijyada u gaaraan haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobin youtube-ka facebookana follow garay intaan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo